Odayaal sida muuqaalka aad u jeedaan halkani waa qayb ka mid ah xaafadda magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Xawataako laanta Bulxabley qoysas badan ayaa goodoon ku ah oo wadooyinka meelaha dalcadda ka ah soo miceen biday oo ay biyaha uga daba yimaadeen sida aad u jeedaan sariirta waxa ay taalaa wadada dhexdeeda qoyskana waxa uu degan yahay meel caruurta loo dhisay bal aan wax yar aan ka weydiino hooyadaani sida uu yahay dareenkeeda maadaama ay gurigeedii ka soo barakacday halkii ay soo miceen biday oo wadada ahaydna ay biyihii uga daba yimaadeen sidee waa xaalkiina Nasri Cusmaan Maxamuud wallahi waa dareemi kartaa qof oo gurigiisa ka soo qaxay oo haddana wada dhexdeeda degan inta oo dhibaato oo maraayo kale gurigeega wax aan ku haystay oo maxay ahaata nolol ay kuma helayo hadda wadada iyo dariiqa aan fadhiyo goorma halkan soo gaarteen marka meeshaan waxaan nimaaday 3 maalmood aan joognaa hadda biyaha goormay kaaga daba yimaadeen halkan biyahan xoogooda xalay nooga daba imaadeen ilaa saacadda la taagan yahay tarkooda socdaa maxaa khasaara oo idin geystay hadda banaanka aan ku sugantiin wallahi bilaa khasaara hadda maxay ahaato khasaara xaq alla jirtaa laakiin xalay anagoo wada jiifno guri oo aan ku soo qaxnay ku jirno hadda banaanka inaan wada deganahay waa u jeedaa waa kaasa guriga aan ku soo qaxnay biyaha nooga daba yimid ilmihii iyo joodarayaashii iyo kulli waa ku wada badoobeen waa ka hadda caradan waxaan yaallo dhan u jeedid waa joodarayaashii ilmaha ay xal ku wada jiifeen saacatay hadda joodare wuxuu u sheegayba ma jirtaba hadii ilmihii naftooda ay iiga badbaadaybo marka imisa caruur ayaa ku joogtay wallahi hadda meeshan 8 caruur ay joogto ka waran marka biyaha sidee uga celisaa oo wax ugu karisaa jiif sidee u kala helaan biyaha meel oo maxay ahaata dalacada oo biyaha aan fuuli karin aan u saaraa burjukada meeshaas aan wax ugu kariyaa korkaas raarta koreeta aan ku siiyaa annagana biyaha iska dhex joognaa marka maxaa uga bixi waysa biyaha intii aysan saan idin go'doomin maya wallahi hadda meel aan u bixi karno oo aan u qaxi karno u barakici karno ma jirto inkastoo hadda buundooyinka iyo wixii ay xayiran yihiin oo biyo ay ka dul socdaan oo shalay u dambeysay dada ku dhintay la leeyahay marka caruur yar yar aan leeyahay inkastoo hadda ceel jaal aan aqoonin oon ku noolaan karin hadda ceel jaal u qaxo caruurta yar yar aan leeyahay qasab waa inay leeyihiin guriyihii aan soo fiirinaynaa oo buundadii aan maraynaa mana mari karaan oo awood uma lahan inay maraan dadka waaweynaa ku dhamaano hadda biyaha waa maalintii saddexaad sida ay socdaan haddii ay sii kordhaan maxaa ku xal ah dhulkii aad deganeedeen biyo ayaa soo galaya wallahi markaas xal alla agtiisa uu jiraa kale sidii markaas oo xal oo noqdo markaas soo baxan ku dhaqaaqi doonaa maasantaha daawadayaal sida aad daawanaysaan weli waxaan ku guda jirnaa magaalada Beledweyne sida aad arkaysaan qoyskan waxa uu samaystay meel yar oo waab ah oo tiirar loo dhisay caruurta si ay uga gambadaan cadceedda iyo roobab weli ka da'aya gudaha magaalada Beledweyne iyadoo dhulkana ay daadad yeelaan sida idin muuqato jaranjartaane caruurta ayaa ku koro oo buushkaas koro oo looga badbaadinayo cadceedda iyo weliba biyaha dhulka daadsan halkaas ayay miceen bideen waa xaalad xanuun badan waad dareemi kartaan muuqaalka sida idin muuqato waxaa kaleeto jira qoysas badan oo wadooyinka hareeraheeda sidaas oo kaleeto u hareeraysan maahan qoyska Nasro oo kaliya xaaladda Beledweyne mar waliba ay fatahaad imaato sidaan iyo si ka daran ayay nolosha dadku ay miceen bidaan sida aad u jeedaan halkaasi maaha goob ay caruur ay ku noolaan karto maalintii labaad ayay ku sugan yihiin hoygoodii ay ka soo barakaceen waa wada dhinaceeda mar kale ayay inay barakacaan qarka u saaran yihiin haddii roobabka ay sii socdaan iyo biyaha soo socda oo la sheegaya si kastaba ha ahaatee daawadayaal sida aad u jeedaan muuqaalkaasi aadka u halista badan waxaa wajahaya shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanad waliba haddii aysan dhib noocan oo kale aysan la kulmin waa hubaal sanadka xiga in ay la kulmaan ma jirto dawlad iyo maamul iyo ganacsato iyo shacab midna isku daya sidii ay uga hortagi lahaayeen amaba ay ula tacaali lahaayeen sidii ay uga badbaadi lahaayeen musiibooyinka noocan oo sanad waliba ku soo laalaabta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dawladda dhexe ee Soomaaliya mar waliba oo ay fatahaad timaado waa ay ka hadashaa balse ma samayso ficil ku aadan
sidii loola tacaali lahaa maaraynta musiibooyinkan ku soo noqnoqday shacabka ay mas-uulka ka yihiin. sidoo kaleeto waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan ee dowladda dhexe ku matala sida xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare iyagu dareen ahaan lama damqadaan dadka ku dhibaataysan beledweyne oo waa kuwo iska damaashaada xilliyada musiibadan ay wajahayaan shacabka ay mas-uuliyadda ku matalaan ee gobolka hiiraan. ma jirto mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya ee matala shacabkan aad u jeedaan dhibaatada ay wajahayaan oo soo gaara gudaha beledweyne xilliyada fatahaaduhu ay dhacaan. qaarkood xataa inay soo gaaraan iska daaye maba ka hadlaan dhibaatada haysata shacabka. isku soo wada duuduuboo dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeellaba ma jirto wax qorshe ah oo kaga aadan ka hortag ama la tacaalid dhanka fatahaadda. tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu karkaaradu jabsaday webiga shabeelle oo dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan 26 bishan Oktoobar, waxa uu geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh, waxaana ku geeriyooday inta la xaqiijiyey daadadka uu sameeyey webiga shabeelle dad kor u dhaafaya 10 ruux oo ay ugu dambeysay doonidii shalay ku rogmatay magaalada beledweyne oo ay saarnaayeen dad gaaraya dhowr iyo 20 ruux oo laga helay ilaa 14 ruux. nolol iyo geeri ilaa hadda lagu leeyahay 8 ruux oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi. sidoo kale waxaa jiray dad ku geeriyooday buundada loo yaqaano buunda koowaad amaba buundada nuurxawaad, halkaasi oo ah marinka ugu halista badan dadkuna ay doonayaan in ay ka baxsadaan amaba ay maraan si ay u gaaraan deegaanka ceel jaalle. xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa dhaliisha ugu badan ay u jeedinayaan shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne, kuwaasi oo ah kuwa aanan u damqanin shacabka ku nool magaalada beledweyne. waxay ku shaqaysataan ahayn hooyoy biyahana waatana 2 isbuuc waan hayaan oo cawad xal inoogu darneed. waa u jeedii meesha cidlada aan fadhino ay waa iska rafaasana ilmooley waa iska ahay agoonley waa iska ahay waxay ku shaqaysata waa iska ahay waxaan talahayna malahan tala waa tii ilaahay ha gargaar degdeg maxaan ku sheegaa waa kaasa hooyoy biyaha goorma ku soo galeen biyaha ayaantan waan hayaan isbuucan 2 isbuuc amal waan hayaan xala u darneed maxamadka meelaha banaanka waxa ugu bixi weysay banaanka tabara ii diiday waana degdegna waa igu soo galeen tabarna waa ii diiday xamuulkaana waa haya waa qaadi waay tabar waa ay haysataa xoo ku shaqaysataa banaan hadda u baxo ciyaalkii waxaan u taaga mahay biyaha hadda soo bataan maxaa qorshe ku ah wax qorshe muslimkii iyo wixii ilaahay dad igu soo dhiibaa iyo qorshe kale ma hay marka hadda ka hor sidaan oo kale ma idinku dhacday waa nagu dhacday aad iyo aad ay noogu dhacday oo maxaan ku sheegaa macal alaabay macal adduunyo ay naga qaaday biyaha waan sii wadi doonaa muuqaalada xanuunka badan inaan idinla soo wadaagno. waa mahadsantiin.